haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ah aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaatay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aad ahaateed aad rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. wata qaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fi suurati الracd, fi suurati اlisra, fi suurati اlanbiya, tawba, saba, saad, xadiid, xashr, saf, aljumca, ataqaabun, suwarkaas oo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu الracdu bixamdi. onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya. wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabixna waطayr. nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray. aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya. bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlardu waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura. cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira, toddobada cir iyo dhulba waxaa jira, iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya. wain min shayin laa yusabixu bixamdi, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa, ariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayru saafaatin kulu qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. mid waliba ariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud uu warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy. ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaana wa tacaala. wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam tabraani soo saaray, sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo. wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqa isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya, oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nabigaanu la fadhinay annagoo xalqa fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahy. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyahy, dadkaygii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cunno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadkao dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan inagu maxallo shaahidkeenu u soconnaa wax weeyaan umma min alumami tusabbix qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaa suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lardi lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabbika alacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla 7 suuradood 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabma alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati walarda wajacala nuura wadulumaat yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala cala cabdihi lkitaaba walam yajcal lahu ciwad iyo saba 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo ah waa soo aroortay 4 jeer ficil mudaaric iyadoo ah waa soo aroortay 20 jeer siqatu amr iyadoo ah 18 jeer siqatu ismi faacil iyadoo ah maratayn siqa masdara iyadoo ah 2 goor siqa ism iyadoo ah 41 jeer yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culamadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadood oo ka mid ah ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan ee qur-aan ku soo aroortay badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culamadu yidhahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan nabiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfaca badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nabiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri sababtu u dalbanayaa waa maxay
كي نصبح